faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax miino oo ka dhacay agagaarka haanta dheer ee degmada Daynile sida ay xaqiijiyeen maamulka degmada Daynile. qaraxan ayaa ahaa mid lagu aasay wadada dhinaceeda, gaar ahaan wadada u baxda xarunta maamulka degmada Daynile agagaarka isbitaalka Guutaale. xogayaha degmada Daynile Mahad Shilaawe ayaa xaqiijiyay in 3 ruux oo shacab ah ay waxyeello ka soo gaartay qaraxa, isla markaana la damacsanaa mas'uuliyiin ka tirsan degmada Daynile. ma santahay kaabo saaki xilli aan ka soo baxay gurigayga isla markaasna aan u socday ama aan doonay inaan gudooleeyga shaqo aan u socday xarunta degmada ayaa qarax waxaa lagula eegtay baabuurkayga meel u dhaxaysa xarunta degmada iyo kulliyadda jaalasiyaad oo ah wadada ay maraan maamulka degmada iyo mas'uuliyiinta kale iyo dhammaan dadka shacabka. marka halkaas ayaa miino nooca remote control-ka ah lagula qarxiyay, inkastoo aysan wax khasaara aysan naga soo gaarin oo wiilashii aniga la socda iyo anigaba aan waxbana gaarin. waxa qof kale oo sida oo mas'uul ah lama saarin, kaliya waxay la socdeen laba wiil oo staff ah wiilashii la socday aniga waxbana ma soo gaarin, kaliya wiil yar oo shacab oo 10 jir ayaa meesha gaariga geeskiisa maray wadada maray ayaa fir oo ka galay qaybta sare ee jirkiisa, gaar ahaan qoorta, isla markiina istaala loola cararay. marka waxaa jirta qarax kale oo meesha ka dhacay isla waqti daqiiqado yar ka hor oo sidaas oo kale uga dhacay oo 2 qof ay ku dhaawacantay, walow aan arkin labadaas qofood, laakiin ay ugu wargeliyeen dadka meesha ku sugan in 2 qofood dhaawac meesha laga qaaday. ciidanka booliska ee degmada Daynile ayaa gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay, waxaana la sheegay in ay halkaasi ka sameynayaan howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo.